ciidamadan idin muuqda waxa lagu diyaariyay magaalada Gurceel baa lagu diyaariyay waxa lagu wadaa ciidamadanu inay ka howlgalaan ceelbuur baa la doonayaa shayaadiinta joogta in lagu qabto macaawisleyda deegaankeeda xoreysanaysa hore jirtay macaawisley xoreynaysa deegaan qabiil kale waxaan rabaa marka libin kaste oo dadka goboladaas degan ay keenaan dad kala qaata qodob yar baan idin soo qaadayaa dadkii ugu horeeyay ee macaawisley sameeyay ee sunna wal jamaaca la baxay ee nimankii shayaadiinta la dagaalamay iyadan dawladu taakulaynayn oo rasaas ciidusiinayn ridiisa rasaastu kala baxay hashiisa qoriga kala baxay raggii kula dagaalamay ayaa jooga Gurceel iyo Dhuusamareeb magaalada Muqdisho iyadoo shayaadiin haystaan oo madaxtooyada ay u jiraan kaliya 100 tilaabo ayaa halka laga xoreeyay dadkaas cidna iyadoon taageerin waxaan rabaa marka maantay inaan dardaaran u jeediyaan rabaa beesha meesha degan war adinku Soomaalinimaad u dhimataan mar waliba waxaad u dagaalamaysaa waa Soomaalinimo qabiil lagama yaqaano cid kasto Soomaaliyeed nacay baad u qabtaan marka shayaadiintu dhibayaan garbaad siidaan waxaan rabaa marka taariikhdu waa muguurtay taariikhdiina qorta yaan taariikhdiina qof kale idin qorin yaa libintiina qof kala qaadan maanta waa inaad buuga ku xariiqdaan ceelbuur inaad u qabanaysiin beesha murusade buuga waa inaad ku xariiqdaan mustaqbalka fog waa inaad kula gorgortami kartaa dadka lemeesha dad baa kaaga dhimanaya wiilal baa kaaga dhimanaya qaar baa kaaga naafoobaya qaar baa ku dhaawacmaya markaasaa leeyahay anigu nin qabiil maahi dadka qabiilada uu oleeyana maahi laakiin baa meesha taala Soomaaliyu qabiil bay qaadatay Soomaalida ayada iskala qoqobtay anigu Soomaali weyn baan ka jecel qof kasta oo deegaanada ku dhashay kaligay maahane Soomaalinimadu dhiiga u shuba ma arkaysid qof deegaanadaas u dhashay oo faanfaan iyo bugux iyo igu sawir wax u qabanaya waxa ay qabanayaan si dacad ay u qabtaan markay shala la dagaalamayeen beesha Xawaadle oo ay shabaab la xoreynayeen oo saraakiishii la xoreynaysa la yaqaanay ma aragto social media wax ka sheegayo dhahaya beesha cayra dagaalka ku jirta ma aragto boqolkiiba 50 dadkii la dagaalamayay ahaayeen saraakiil ku dhimatan garanaya cid xustay iyo cid sheegaysana male beesha Xawaadle kacday macaawisley samaysteen shabaab iska kiciyeen baa lagu leeyahay waxaan rabaa marka in la iscaawiyo oo cadowgan dadka Soomaaliyeed aad ka caawisaan maadaama aad tihiin dadka caaradku waa ummadda Soomaaliyeed maahan laakiin taariikhdiina qorta 100 sano kadib waxa la rabaa taariikhdiinu inaad sheegi kartaa laga rabaa inaad dhihi kartaa laga rabaa waxaan ahay qofkii koowaad ee shacab ahay ee la dagaalama shayaadiin baladu fiirso waxaa la rabaa inaad dhihi kartid waxaan ahay shacabkii koowaad oo shacab kale oo Soomaaliyeed caawiyo ka dulqaaday balada fiiri waqtiga dhow waxa inaad intaad samaysaan aad ka gudubtaan inaad taariikhda sooyaalka qortaan oo wiilashiinu akhristaan oo ilmihiinu akhristaan oo jiilka dambe akhristaan oo ay ku faanaan baa loo baahan yahay baladu fiirso ay ku faanaan ummadda Soomaaliyeed doorka aad uga jirtaana waxa la ogaa karaa marka taariikhdiina qortaan marka aad wax walba samaysaan fi sabilillah aad u samaysaan laakiin aad sooyaalka ku darsataan libintiina inaan nin kale ku bootayn libintiina inaan nin kale qaadan saaban doonaya sidaan doonaya inaad caawisaan oo galmudug deegaanada galmudug meel kasta oo ka joogaan nimanka shayaadiinta aad ugu tagtaan raalibanka laakiin libintiina yaan la qaadanin ugu dambeyntii ciidanka macaawisleyda ceelbuur inay qabtaan iyo inta galmudug ay ka haystaan shayaadiintu ay qabtaan loo carbinayo ee Gurceel lagu aruuriyay ee tirada badan waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaya waxaana leeyahay garabkiina Allah galo waxaana nuba boqolkiiba boqol markay maqlaan magaciina markay maqlaan dad meesha ka soo socdaaho inay dagaalka galayaan way ka sii baxayaan xitaa lama in la dagaalaan xitaa ma awoodaan nimanka shayaadiin la yiraahdo haday maqlaan Gurceel baa macaawisley ka soo baxday wallahi ceelbuur inaan dagaal ugu galeyn hadalka maanta meel ku qorta way ka sii bixi doonaan sababtoo ma awoodaan in la dagaalamaan waa la is yaqaanaa dhowr jeer bay soo rogaal celiyeen timajilic baa halka uga dhintay 10 baa loogu dhigay waxaan leeyahay boqolkiiba boqol ha soo jeesanina inta deegaanada galmudug
taaka kamida ay shayaadiintu haystaan libintiinana nin kale yaqaadan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay taariikhdu is qoraysaa dadka hala maamuso kuwa iyaga ka horreeyay iyaga hala maamuso aad iyo aad baad mahadsan tahay muuqaalkan maanta waa dhigaal weeye beesha anigu aan ka dhashay wax ma qortaane kan waa dhigaal buu u yahay haddaad beesha aan sheegayaad kamid tahay sheertu waajib bay kugu tahay si oo kayd u noqdo oo mustaqbalka fog waxaan anagu 5 sano iyo 10 sano ka hadli mayno kontonka sano hadda soo socda muuqaalkan waxa la wiilashan loo shido waa inaad sheer galaysaa oo kaadisaa waa inaad gaarsiidaa friendskaada say ku ogaadaan qofka aad tahay qadiyadaada libintaada waa inaad fog adigu waa inaad fogaysaa libintaada adigu waa inaad meel fog gaarsiidaa inaad sheer galaysaa waa inaad luqyada ugu dirtaa maanta kala faanku waa iyagii adna waa ku eegyahay ku cibaadayso muuqaalkan aad iyo aad baad mahadsantiin